السلام الله عليكم صاحب يال مeel kasto joogtaan maalin wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay warar degdeg ah oo goordhow naga soo gaaray deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaal culus uu ka qarxay halkaasi dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba beelood oo wada degan halkaasi wuxuuna salka ku hayaa wiil dhalinyaro ah oo habeen ka hor lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay oo mid kamid ah magaciisa lagu soo koobay Finjix wali waan si rasmi ah wali loo xaqiijin dagaalkan oo socday muddo saacado ah ayaa isla waqti xaadirkan waxa la maqlayaa rasaas goos oo ka socota halkaasi dilka wiilka dhalinyarada ah ee habeen ka hor lagu dilay halkaasi ayaa maanta loo fadhiyay waawaantiisa waxaase dil kale ka dhacay isla deegaanka ceelasha biyaha oo ku saabsan labada beelood arrinta ayaa noqotay arrin aad u culus waxaana hadda laga yaabaa inay ku baxaan ciidamo ku sugan deegaanka siinka dheer oo arrintaas ay waan ka dhex dhigaan labada beelood ayaa sanadkii hore saan oo kale ugu dagaalamay deegaanka ceelasha biyaha walow ay dhowr qof iska dileen isla sanadkaasi ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka degmada la foolo oo ku saabsan arrintaani fadlan dib kala soo wixii war ah oo ku soo kordha arrintaani fadlan subscribe saar YouTube channel-keena siina share gareey